madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Farmaajo ayaa maalinimada birita ah u safraya magaalada Warar ee caasimadda gobolka ismaamulka Amxaarada ee dalka Itoobiya. madaxweyne Farmaajo ayaa magaalada Warar uga qaybgalaya shirka saddex geesoodka ah ee ay yeelanayaan madaxda Soomaaliya, Itoobiya iyo Eritrea. agaasimaha warfaafinta madaxtooyada filla Soomaaliya ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray in madaxweyne Farmaajo uu biri u safri doono magaalada Warar ee dalka Itoobiya halkaasi oo uga qaybgalayo shirka saddex geesoodka. shirkan ayaa ah wajigii labaad ee shirka iskaashiga dhaqaalaha geeska Afrika kaasi oo daba socda heshiiskii bishii September ee sanadkan ay asmara ku kala saxiixdeen madaxda dalalka Itoobiya, Eritrea iyo Soomaaliya. tani markii isbedelku ku dhacay gobolka geeska Afrika iyo heshiiskii lagu soo afjaray colaadii u dhaxaysay dalalka Itoobiya iyo Eritrea ayaa Soomaaliya waxa ay qayb ka noqotay xulafada labadaasi dal oo gadaal ay ka taagan yihiin isbaahaysiga Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta.